اللي دعددي أوغست 4 oo maanta ay tahay 5 sano ka soo wareegtay waxay ahayd dhacdo aad iyo aad murugo u leh sidaan ogsoonahay waxa weeyaan maamulkii hore ee Cabdiilay uu maaragtay hormoodka u ahaa dhibaato badan bay shacabka ku hayeen oo isugu jira dil kufsi hanti shacab oo la boobo iyo maaragtay bahdil aad iyo aad fara badan muddo socday marka nidaamku khalkhal badan buu isku riday iyo maaragtay isku dhaxyaac badan dhalinyaradii heego loorinay ayaa iyadana la abaabulay oo maxaan ku raahdaa la maalgeliyay hub iyo maaragtay wax badan la siiyay kadib marka dhalinyaradii oo aad loo hubeeyay ayaa magaalada lagu sii daayay si marka loo khalkhal geliyo ciidankana ay isku dhac ku sameeyaan halkiina fawda ka dhacday magaaladii waa la gubay hanti badan baa la ku burburtay shacabkii dawladnimadii waa meesha ka baxday systemkii sidoo u dhanaana meesha uu ka baxay dawladnimadii xitaa servicekii maaragtay bulshada ay lahaydna uu istaagay marka dhibaatadaas oo weyn oo xilli kala guur ah ku soo beegantay ay ahayd waxa marka taa ka dambeeyay in laba cisho kadib ay dawladda federaalku tallaabo qaado oo marka naydiyay Cabdiilay la qabto lana xidho haddana uu sidaas ku xidhan yahay dulmigii iyo dhibaatadii uu ummadda u geystay baana maaragtay ilaa hadda uu xidhan yahay oo maxaan ku dhaajisay ama jasaygiisi uu helay baan filaynaa marka dhacdadaasi waxa cashir laga baran karaa kow nin maamul ah oo dulmi ummadiisa u geysta in ilaahay ciduu doono intuu u soo diro laga qaban karo ama iyagu ha iska qabtaan ama shimbir kale ilaahay ha u soo diree dulmiga kolleyba inuuna waarin oo maaragtay mar ummadda ilaahay ka dulqaadi doono ummaduna ay number 2 iyagu u istaagto marka ay dhibaato maaragtay ay faraha ka baxdo sida ay dulmigaas isaga kor qaadi lahaayeen marka cashirkaas taas laga baran karaa kow inta kadibna kulleeyde wax badan bay noo qabsoomay dhinaca horumarka nabadgeliyada maamulka suuban nabadgeliye maxaan ku raadaayo xuriyatul qowlka oo 5 sano isbedel fiican ayaan isleenahay inay uu dhacay waxa inta dheer waxyaalo badan oo inaga dhimanno way jiraan oo u baahan in la sii xoojiyo maxaan ku raahdaa kor loo sii qaado laakiin waxa laynala maagana August 4 in ummadda Soomaaliyeed dabin lagu rido dabinkaas oo in dawladda federaalka madaxa la isu geliyo liibi booliska iyo ciidamada federaalku ay madaxa isla galaan deegaanka Soomaaliduna uu noqdo goob dagaal oo lagu maaragtay la isku eriyado ilaahay laakiin uu inaga badbaadiyay waa alxamdulillah baan leenahay qiso hadii la xasuusto ilaa ay imaka argagax dadka ku ridaysa way guddigii fulinta maalinta guddigii fulinta waqtiga jiray systemka ay sida dadweynaha ugu qeyliyaan ciidankii qaranka Ethiopia oo ay dhagax tuurayaan ayaan imid aad baan u yaabay way soo daba dhaqaaqeen ciidankii baa daba dhaqaaqay ciidankii baa dhagax tuureen shacab meel lagu maaragtay lagu abaabulay goobo fara badan lagu abaabulay baa in yar dabadeed soo galay isagoo heego leh xaqiiqatan maalintaas qiiqii ka kacay in yar dabadeed waxaan aragnay dadkeenii shacabka ahaa oo intay masiiba ku dhacday oo shacabkii boobaya odaygii iyo wadaadkii shulka xidhnaa oo guriga jabsanaya waxaan anagu maalintan odaynimo isku xilqaaday maalintaas ahayd maalintaas waxaan odayaal 15 ayaan isku hagaajinay odayaal 15 ka intaan budad qaadanay ayaan kolba meesha aan awoodi karno inaan kala kaxayn karno ayaan meel jabsanaya ka celinay sidii baanu dad fara badan oo masaakiina aan isku daynay inaan u badbaadino xaqiiqatan maalintaas waxay ahayd maalin aad iyo aad maaragtay iyada oo kale inay nagu dhacdo aan ilaahay maaragtay ka barinay inay nagu dhicin maalin masiiba ay nagu dhacday bay ahayd saamaynta ugu xuneed deegaanka ku dhacay xilligaa waxa kamid ahaa magaalada Jigjiga gaar ahaan xubnihii qoyska oo kala lumay oo qofba meel laga raadiyo waa marka koobaad laba maciishadii iyo noloshii mar hadii la waayo meel wax laga iibsado inagu sida ummadaha kale midnihiin dalka reer Yurubka bishiiba hal mar la soo adeeganayo ama labadii toddobaadba hal mar la soo adeeganayo inagu waxaan ku dhasanahay qoys maalin walba suuqa u baxo soo adeegtayeen qoyskii sidaa ku tala galay marka maanta la yiraahdo wax dhaqaaqaya ma jiraan hadii biyo tahay haday leer tahay haday telefoon tahay haday dukaan tahay meel loo dhaqaaqaya ma jiro oo waliba xubnihii qoyska kala maqan yihiin cabsideeda leedahay marka taasi waxay warwarka igu daran bay ahayd talabada maskaxda soo gashay waxay noqotay xafiisyadii dawladda iyo hantidii private-ka oo la bilaqaysanayo
waxyaabahan weligii iimaankayga ka bixin waxa kamid ah xafiisyadii dowladda deegaanka Soomaalida aynu ahayn si kasta maamulkii jiray kharbudaad iyo khalkhal ha u keeno oo ha uu dadku cabsi badan ku soo jiraan laakiin xafiiskii marka la balaqaysto waxa lagu waayay hantidii ugu yaraan dhowr iyo 20 sanadood la soo ururinay ayaa meesha ka baxday ashar kaliya laga baran karayna waxa weeye nabadgelyadu waxay ku tari karayso dagaalku kuma taro wixii nabadgelyaad ku kasban karto nabadgelyo lagu heli karo ama wada hadal lagu heli karayo dagaal lagu ma gaari karayo marka taas oo kale inaanay nagu soo noqon alxamdulillah rabbil caalamiin baan leenahay dhammaantan waan joognaa 5 sanadood kadib oo inaga ka sheekeynayna inagoo dhammaantan ku sugan magaalada Jigjiga iyo xaruntii telefishinka deegaanka Soomaalida aad baan u mahadsantiin